أنا بوق ليس كمل ملوغي معه ما كان قري واحد مودين وحي يقصود دقيقي ما أنت سبب ما بلعبه أنا جامعة هيلسكين فيرس كوتشر way adiga Faysal ahaan maxaa ku diiday xisbigaaga iyo adiguba inaad isbahaysi cusub محل la يسبح abuurtaan محل يسبح ururada cusub محل يا الله يسبح محل يسبح رجع أقانا له سيست ururo cusub soo ma jiraan dhiig cusub كوما تشيل عصب إيش تلمي 7 urur baa kula tartamaya هذا إيش عصب ودك أنت شقاك سوق بتاعي أتجلس أوروفرت إيش ma dad soo shaqeeyay baad rabtaa adigu cusub هذا واحد إيش يكتها قفك أتلاقي قفك هسه ما قاعد يقول لي سومال هذا ما قاعد أوروبو فرتيو وحبوك كوسو كورينيا قفك شقي ما حملة تجي يدولد حماته ولا سكفوية وخاص هو أفك عدو أفكي سكو أديكته رجينا وين السياسيين kama tirsana miyaa la ascaanada لا سعون ما حدد بريق السول ده لكن السول هو الصين waa si wanaagsan maxaa kaaga qorshe ah maxay qorshe waxay qorshe anu ma dagaal mise colaaseed ku soo celinaysa nabad baan ku dhawaaqay marka soo baxo dow waxaan u fariyaa goosh ka dabarbara corridor labada dhismayaal aan dhageysanayo soo digana takada bal uu ka soo jeesay Muuse ana fuliyay oo dadka war waxaan ku siinay waqtigiisu ahaayo uu ka soo horjeeyay Muuse nimankan kale kula sharaxan ama musharaxiinta kale waad kaga fiican tahay oo waa in adiga lagu darto daa waan ka fiicnay waan ka tacliin badnahay waan ka experience badnahay inta aan dalka galiyay ma gelin baad waxa ii sheegtaa wuxuu maanta intuu cirka isoo tagay Muuse yiraahdo contribution jabad baan hayn jiray moojaane ana samoojane bal wuxuu yiraahdaa inta ay Soomaali jirtay saasaan kelmaddaas maalintan in shisheeye ku yiri xasan ma ka ku yiri ciidamadii baan saa ku yiri bal kelmadii shisheeye anigu ninka qof Soomaali difaacanay ee uu hadlo xuquuqdooda Colombia laakiin أنا ما أنت دبرت له دونه هذه لا يلا وحيا ما أنت حاسو ودنا social international ساكا سوق يبقى إنه قريشة وضدك كعراضي موسى وقديه إن حاشان سوكي مركب دمسلها وحن دوبا قاضي يأكل مي adigu tartankii baad hadda ku jirtaa xisbigaaga iyo musharaxnimadaadaba rajo intee leeg baad ka qabtaa in labadaasba la doorto ورشة إلهي بهايا كان ودي ذلك واحد ولا يتم شيء ولا مراقبين تايدي أي wadani iyo ka soo qoray ya Muuse halkan boqolkiiba 10 baa la qoray 4% aan geyn baa la iyo wada heshay guurtayda dad waan ha galeen guurtayda soo dejin ha galeen wax maanu waxa ma sheegi maayo laakiin waxaan ku sheegay dalkan reform ku sameeynaya dul gariir qarannimo ah ayaan ku sameeynaya boqolka maalmood oo horeeya dul gariir ma ku sameeynaya insha Allah taala waxaad marka adaan ku dhisay adoo meelan adoo meelo dhalinyaro ah oo wax bartay maxaa intuu shaqeeyay magaxumo la baxay waxa jira xulafaysi siyaasadeed oo xisbiyada qaar iyo ururada ay sameeyeen isbahaysiga kaah iyo wadani ururka kaah iyo xisbiga wadani baa jira haatan oo dabcan dadku qaar ay yiraahdaan waa isbahaysiga ugu weyn ee haatan ka dhex taagan xisbiyada qaranka ama siyaasadda Soomaaliland adigu sidee baad u aragtaa anigu waxaan ku kaah iyo isbahaysigiisa wadani kaah iyo wadani iyo kulmiye وهل حسبي waa markii afraad tartankaagu hore waxaad u tiri hadal baa laga hayaa ah anigu 3 jeer baan soo dhacay ee maan quusto mar afraadka miyaad quusanaysaa mise waa sii joogtaa anigu maanta waxaan ku midnahay difaaca qaranka aniga waxaan ku mid MAU da labadu ka soo sheedaa in wadani qaar intelligence wala weydiin ka inka leemanka wixii ay weydiin Mareykan baa tagtay wada aragtay adduunku soo shaqeynayo waa daawata TV-yada waa musharaxiintu issue ku hadlayaan maanta waxa ka hadlayaan wax isku haystaan waa dhaqaalihii kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ahna gudoomiyaha xisbigaasi gudoomiye marka hore musharax waa ku soo dhaweynayaa mar labaadka markii afraad ayaad u tartamaysaa xilka madaxweynaha Somaliland doorashada la mudeeyay inay qabsoonto 2024 November bishan soo socota maxaad doonaysaa in lagu doorto oo aad shacabka Somaliland u ballan qaadaysaa Bismillahir Rahmanir Rahim waxaan u horta u doonayaa lagu doorto waxaan caruurtayda u imi ayagoo ragga imanka u diyaar dhamay ay ka soo horjeedaan in asxaab la furo aan xusbiga u furay UCID taasoo ah inaan ummadayda waxaan u garaadisay ummadayda Soomaali ugu ilbaxsan ugu lacag badan taajirsan
oo Somaliland ay tahay Hargeysa tahay hoyga Soomaaliya oo dhan waxaan ku garaadsan ilaahay joojay inaga u liidana oo aniga kula hadlaya oo 7 caruur wata oo mishan bilood jiro naftay la baxsado reeraan ii dilay inay taas ku dhicin caruurtina ku dhicin oo qarankeena aan soo ceshino ayaan horta aan siyaasad u galay caruurteeda markaan ka tagay waxaan ku yiri nabi ibraahim wuxuu kaga tagay caruurtiisii lama degaan ana baraf laakiin ilaahay baa ka tagay qaran baan isticmaalaya marka horta aan saasanaynay qorshaygan waa qorshe ah in ummadayda wax u qabto dalkan ka dhiga dal sharci ku shaqeeya kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka lagu xukumo ayaa muhiim ayaa way mudane musharax Faysal Cali Waraabe Somaliland duruufo badan baa waqti xaadirkan ka jira haday noqoto dhanka dhaqaalaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo waliba kaabayaasha dhanka horumarka adigu arimahaasi maxaa kaaga qorshaha maxaa si buuga ku qoran oo aad sheegi kartaa aniga buug la iska malmaluqay ma markaan qoray waxaad moodaa in wax igu soo dagay 97 baan bilaabay anoo jaamacadda Helsinki University ku jira chapterka dhaqaalaha waxa ay qoray Saad Cali Shari oo markaa London joogo daabshiil u shaqeeya ka diinta waxa ay qoray Sheekh Abubakar iga faay ka dhaqta caafimaad waxa ay qoray Dr. Maxamuud Aydid oo WHO shaqeynay 80 pages buu marka dawada yar 40 baa laga dhigay naga sharciga buugaygu waa ka anaga nagu ogolaaday inaan xubin ka noqono social internationals ururka leeyahay ee 116 waddan ku dhexdan ku jiraan marka anaga waxa iyagu ma wax kidaar laga soo qorqorin maaha waxa weeye waxaad ka ganacsiga magaciyaga justice and welfare cadaalad iyo inaan qofna dalka ku gaajo mana sheegi kartaa mashaariic aad doonaysid inaad dalka ka hirgeliso oo aad dhalinyarada kala shaqo abuur ugu sameeysid mashaariic maaha waxa tahay siyaasadda dhaqaalaha waxaan sameeynaa insha Allah taala horta dadka waxa u muhiimsan caafimaad iyo xumaysan iyo waxbarasho boqolkiiba 15 budgetka waxaan gelinaa waxbarasho boqolkiiba 15 caafimaad baan gelinaa dhaqaalaha si aan u meedeynana infrastructure-ka kabaha dhaqaalaha dekado iyo wadooyin iyo airport waan 10 sano gudaheed baan doonaa insha Allah taala aan waddanka isku xidhno oo maanta waad ogtahay waxa ceergaaba ka soo baxa inuu ma yimaado xabadda kaabishku intaas leegtay Ethiopia nooga timaada waa waddan la'aanta waa aragta xooleyna ka yimaada hawd waddan ma jirto 70 kilomitir baa way xad ku jira dhaqaaleena waxaan xoog saarnaa dhaqaalaha xoolaha iyo kalluunka 850 kilomitir badan ku jira wax kale ma soo baxno waxaan sameeynaa dadka iska taagan vacation schools baan sameeynaa boqolkiiba 75 dadka dhalinyarta iskuulada gasha waxaan gelinaa vacation Australia gelinaa say kalluunka u bataan say beeraha u samaystaan say rinjiga u bartaan say dhismaha u bartaan yaan barnaa insha Allah taala waxaan sameeynaa jawi dalka wax lagu maalgashan karo oo 2 saacadood ayaa qofkii doonaya la yimaada investment maalgelis lagu dhameynaya ma la meerayso iyo laalish bixi soo jiita waxaan doonaa soo jiidano foreign investment waxaan doonaa dekedeena inaan ka dhigna hab ilaa ay siiso laan lokadka oo dhan Suudaan shidaalkeeda doonaa kaga dhoofiyo hadii la yiraahdo marka waxa weeye dalka waxa loo sameeyaa jawi waxa lagu qashado ma you have to be a friend saaxiib la noqota business community sharci baan soo saarnaa waxaan sameeynaa sharciga BP private and public lawada leeyahay leyrka biyaha hadda la yiraahdo wax basic oo dhan ka dhigaysa Mareykanka inay noqoto ilaa safara way Faysal Somaliland muddo 30 sano ka badan waxay raadinaysay i'tiraaf adiga maxaa kaaga qorsheeyay inaad Somaliland i'tiraaf u keento si qaabkeebaad isleedahay waad ugu keeni kartaa hadii madaxweyne lagu darto i'tiraafka Somaliland weligeed ma raadin Somaliland kolba ka fadhiya ma ka kala xasii jiray magu Cabdiraxmaan Tuursi meesha rag waaweyn
أنا dadka adduunkan mari jiray oo SNMta lahaa hana ictiraafin oo nusaysanaahay markuu cigaal yimi the same thing ayaa dhacday mar qura mar kasta waxa dhacaysa siyaasadka Soomaaliland inuu ilaa intuu kaas fadhiyaan dalka hore u maray anoo markaan keenay magaranaysaa MBAdii Kenya 2006 لحدا كان ودنا وحي لها كل مية وحي لها سوي فاس بعدين سألنا وحي ترى فرق عليه يا لها مركا تاس وانا كجود بيانو national unity government بان سمعنا marka maxaa keenay in ictiraafka la diido maadaama la wada doono ba waa xaasidiyan maxaa dawladnimada iyo Soomaaliya yaan laga midaysnin qarannimada laga midaysna wala laga midaysna wuxuu ninkaas leeyahay anu ma ka imaadaan Kenya marka dan shakhsi baa lagu xiray waa dan shakhsi waa tamaantana taagan way ka sii xumaato liba kuwii hore waa bas yahay dadkan isku diri jireen kuwa dadka way isku direen tutsi dadka iska dhigan adigu muddo dheer macaarid baan hayday inta marna ma hor istaagtay ictiraafka Soomaaliland xukuumadihii aad macaaridka ku hayday anigu ninka wax li jabaan wahay ana ra'iisul wasaare soo salay ugu yeelanay you are kidding an ku sheegay ka wali weynta dalka waxaan inaan muddo anigu ninka qof Soomaaliland difaacanay ee uu hadla xuquuqdooda ee Colombia gay laakiin ana maanta dad Britain doono hadii la yiraahdo waxay imay intaas wadan social international ka soo qayb geliya inauguration-ga xisbiyada xulafatihiin oo 17 yihiin ruling party-yaasha Afrikaanka oo halkaan ugu ictiraafi doono nimankan imaan siyaasiyiinta Soomaaliya local adduunkana way ka xidhayeen Soomaaliya way ka xidhayeen iyo way kala xidhayeen reer reer kala fadhiyaan waxaad aaminsantahay inaad tahay musharrixii Kenya ictiraafka Soomaaliya ana Kenya insha Allah dadka mideeyo inta dadka mideeyo oo istiraatiijiyad sameysano ayaa waxaynu xaq u yahay anagu ma jeerteen gooni goosla Axmed Madoobe gooni goosla inagu mani inagu dal ku darsamayna article qoran jabinay oo leeyahay saxiixdan oo midnimadiini wajis ma jirto maxaad ugu yeeray Soomaaliland waqti xaadirkan maadaama aan la aqoonsanayn Soomaaliland waa aqoonsantay mar hada dalkaaga haysid waa aqoonsantay mar hada ka taliinsa waa aqoonsantay Soomaaliland waa aqoonsantay international adduunkana lama dhalan Soomaaliya waa dan wala kaliya danta Soomaaliya Soomaaliya isku jiray waa Soomaaliland kuna waa daaradiini inaga wajigii Soomaalida ahayd waxa lagu faliyaa maxaa taliyaan lagu dhiibay kala taliyaan maxaa lagu dhiibay barigii dagaalka labaad marka dhamaaday waxa wax qiimo leeyahay ma jiro Kenya ninka haysta Soomaaliya ku faliya Ingiriisku Kenya qaatay Djibouti waxa qaatay Faransiis Djibouti Soomaaliya waxa qaatay taliyaan waxa lagu wadamadii guuleystay maxay talyaanigii laga jabiyay maxay u qaadan waayay Soomaaliya it's nothing waxaad meel muuse oo ka dirsado talyaanigu waxay ma dalba iskuul ma ilaaheen vacation iskuul ma ilaaheen system ma ilaaheen way Faisal arintaas ictiraafka intaas aynu kaga baxaynaa waxaan la wada soconaa in hadda aad ku jirtaan ololihii doorashada taas oo aad ku tartamaysaan inaad mar kale xisbiyo noqotaan sidoo kalena adiga aad doonaysid in madaxweyne lagu doorto musharax madaxweyne xisbigaaga ayaa tahay saddexdiina xisbi qaran waxaa jira xulafaysi siyaasadeed oo xisbiyada qaar iyo ururadu ay sameeyeen isbahaysiga kaah iyo wadani ururka kaah iyo xisbiga wadani baa jira haatan oo dabcan dadku qaar ay yiraahdaan waa isbahaysiga ugu weyn ee haatan ka dhex taagan xisbiyada qaranka ama siyaasadda Soomaaliland adigu sidee baad u aragtaa anigu waxaan ku kaah iyo isbahaysigiisa wadani kaah iyo wadani iyo kulmiye waa hal xusbi waa intii siyaayay madax dawladdiisa ahayd ayaa markii laga dhigay gudoomiyaha musabix waa ku iscasilay Abdirasaaq Khaliifiyo xirsiyo wadani iyaga la soo baxay saarkamay ninka qora ku harsanaa waxa dawladdii hore ina xaashi yaa ku harsanaa musabix ninka ina musabix propose gareeyay soo la sharxana kowsa u ka marka loo eego beel ahaan doorashadii 2017 markii dambe uu helay muusana ku albaabka ka xidhay ee u ololeynayay ninka ina galaal leeyahay iyo wasiirkii maaliyadda macdanta Xuseen guriyaha garaaceen burco muusoo iyo muusoo inaan baatiri hada saana tiraaheen Faisal ma laha u codaysaane wariye wadadkii ka carooday muuse waqadii
ina xaashan sawki markii u dambaysan lahaa waxaan dhooba qaadayaa kulmiye marka aan ma sameeyo anigu recycling ma sameeyo taasoo la tuuray dib u sameyn maayo new fresh leadership waan keenayaa dhalinyaro technocrats oo professionals in adduunka kuwa ku filaqsan ee Soomaaliya ayaan doonayaa in urban level keeno maanta ilaa wasiir ilaa head of department qof meesha uu jooga aqoon loo geeyay ma jirto reer baa loo geeyay dad merit loo geeyay doonayaan bal maanta baarlamaankeena baarlamaanka khayraha keena ma baarlamaanba waa useless institution-ka oo dhan baan baabin guurtideen ma guurtiba waan yahay marka hadlayaan marka waxa weeye waxay nooma dhisnaa dadkan reform u baahan yahay aniga Soomaaliya yana ii danayna hadanaysta anigu I am okay nagaasana arootin okay anigu iyagan u danayna inay dal noqdaan oo caafimaad helaan marka waxa leedahay doorashada danta Soomaaliland baa ku jirta Soomaaliya korsoor bay taagantay haday saddexda kulmi la kala baahinka iyo wadani iyo kulmiye maxamed muuse uu maanta muxuu soo ku dhiriyaa bilaahi baan ku dhaariyay ninka madaxweynaha oo laas anood haysta soo daayay cadawgii Soomaaliland oo calan kale sito hubaysan ninka isagoo 23 guuta haysta 6 bilood ku hayay ciidamadiisa inka kolba loo soo tashado kolba loo soo dhergo weerariyay kaas waa mid bal ninka inagoo ishaysana cadawga ku jira intuu buurta galay bargaadhiisii diray ay askartii Soomaaliland laayeen ay meedka madax iska taageen wuxuu soo waraa بدو سياسي واحد تين جورناليستي عليه investigation بلا سميها بل dadka inuu hor socda maxamed ina xaashiso wasiir muhiim magacu kaga tagay muxuu yahay way yaad ku eedanaysa marka arrimaha waxa weeye dad waa leadership baan jirin qofku markuu shaqadiisa wax u dhiibisid waa CV agta man barwaaq kale xaw ka soo shaqeeyay dawladda Soomaaliland markay isku jireen wali wax public office soo qabtay ku jira waxa ugu dhow marka naga saac shirayna isna wax ka soo shaqeeyay dahabshiin wax dawladnimo garanaya oo ka soo shaqeeyay doonaya nabadkeena ma jiro talabaad generation ka baa jira dad anaga nagu xigta dagaalka ku dhimatay lagu xiriyay dalka ilaahay u naxariistay jaayidi barna carabtii tagay waxa way soo baran daaday marka Soomaaliya waa leysa malihim wadi arka wax marka baarlamaanka noo galay ciyaal yar yar oo qabiiliina oo hadaaqaya oo waliga shaqo soo qaban oo baarta leen garaneen xisbiga soo doortay ka tagay in aan xisbiga lagu fadhiyo leeyahay waxaan nahay ka waxa sharci haduu sharci shaqeynayo waxa samay jirteen dadka sharciga ku soo roginaa way adiga Faysal ahaan maxaa ku diiday xisbigaaga iyo adiguba inaad isbahaysi cusub abuurtaan maxaa la isbahaysi waxa ururada cusub maxaa yaa la isbahaysi waxa la isbahaysi raggan aqaan la isbahaysi ururo cusub soo ma jiraan dhiig cusub kuma jiro cusub isha tilmi toddoba urur baa kula tartamay aduu isha cusub wadanka inta shaqo ka soo qabtay aad gelis urur furtay isha ma dad soo shaqeeyay baad rabtaa adigu cusub aduu waxaad ii sheegtaa qofka aad leedahay qofkaasi magac mu leeyahay Soomaaliland oo magac oo urur buu furtayo waxba ku soo kordhinaya qofka shaqeeyay ee magac xumo la tagay iyo dawladda xumaata wala iska fogeeya you have to distance yourself waxba kaaga dhacaya marka ururadan oo dhan ma rabtid aduu ururama ii sheeg waxaan ururama waa shakhsiyaad وشايف بيسيب عليه وده موسى واحد ضن كلهاي لكن صوت ضدهم إيمان أو ساكم يديوان قليل ما يدنا أم إيمان واحد موسى سمي والدنيا ماشى لبا بيتك صو صارت السنة جيلي وكل بك هلا يسوي صو صارت ما قاعد واحد إيش يجزع بالقف هاي نكاس وحبوكوس وكلنا أربو فرتي يقولون we know of them حد مكا أذان كل شيء أذان ميلان أنا يرى أو وحبرتي maxaad intuu shaqeeyay magaxumo la baxay oo waxba aan lahayn kursiga hel moojaaneen umada maxaad u qabataa 14 sano iyo hay muxuu qabtay muu cusbitaalkeen hal cusbitaal hal cusbitaal la sameeyay karo waay war wadada ka imaan xoolaheenu ay sameeyay karo 7 kilomitir oo shacbiga sameeyay balgobaleeyo iyo bahashan yiraahdo salaxlaba shacbiga baa sameeyay intii kale ku dari waayeen laakiin ma jeedo Faysal soo ma jiraan mashaariic fara badan oo xisbiga kulmiye uu fuliyay hadii tusaale loo soo qaato dekada berbera corridor dhismayaal ana dhageysanayo soo digana dekada berbera uu ka soo jeesay Muuse ana fuliyay oo dadka
waxaan ku siinay waqtigiisu ahaayo wuu ka soo horjeeyay Muuse wuu ka soo horjeeyay kalidoorku ka soo horjeeyay markii madax noo yeelay anaga noo yeelay ra'iisul wasaare hore ee Ethiopia saddexdeedaba labadooda waxay waan baabiinaa haddaan soo baxno isagoo muku soo baxin oo tuyiri waxaan ka dhigayaa commercial ee kalidoorka baabiye ee maalintaas inaga tagtay imaaraadku maalinta wixii aan kula soo heshiinay oo ka baxay Muuse marka waxba lama qaban bad aaminsantii maxaa la dadka wala kala diray maanta dadka waxa la qabtay maanta dalkeenu waxbu haysta maanta waddanka hab waxa sariirta ninka ku guursanaya garowe balad weyne helowey halka mufanish ka soo qaadan jiray Soomaaliya habbeed Soomaaliya oo dhan ninkii wax haysto dhan halka soo gashanay maanta maxaa jira maanta waxa hodheelo wada xiran qofku sheegay taxadaraabkii weyn geliya ay fartiina ay labadii ilaahay inuu dhacay marka hada wax laga sheekay kuwan ma ahe shacabkuna maanta soo wadaagay marka arkay waxay sameeyeen marka arkay dabaaldagoodi xalayto waxaad moodaysaa xalayto marka wadana joogay night class buu sameeyay night class ilaa waabarigi hablaha wiilash ay ku tumanayeen kana maanta arkay dagaal baa xitaa ka dhaxbada la safaasay biritan way isdiliyaan way adigu tartankii baad hadda ku jirtaa xisbigaaga iyo musharaxnimadaadaba rajo intee leeg baad ka qabtaa in labadaasba la doorto waa rajada ilaahay baa haya laakiin waa dadaalay wax doonaysan ka sheegay cid gacanta wax ku haysta ilaahay baa subhanahu wa ta'ala haday khayr ay leedahay Soomaaliland khayr leedahay ana soo bixi doona waana ii leedahay maanta ninka qof badbaadin kara Soomaaliland isku keeni kara qulubtooda waana maragale haddaan soo bixi weyno Soomaaliland ma jirisa ilaahay soo saaray manka shalita dalka umada kale kaxeeyay baa la ogolanaya inuu ku soo noqdo ma Muuse loo lagu soo noqdo dalku soo ogolanay no way waa markii afraad tartankaagu hore waxaad u tiri hadal baa laga hayaa anigu 3 jeer baan soo dhacay ee maan quusto mar afraadka miyaad quusanaysaa mise waa sii joogtay dadka aan u dhageysan waxaan u meesha qasti haddaad arin u timi ila arintaa gaadid haddaan kursi waxaan xanaaqi lahaa marka xirasha iyo Muuse la iga badiyay ayaan ka xanaaqi lahaa laakiin anu waxaan u iman qaras noqotaan inta joogina ma ina talada ana hoyay inta uu talay Soomaaliland inta anu aan joogay kuwa meesha iga helay uma talin guddiina badda maxay ka qabteen markii dagaal sokeeyay bal imaka wada dagaal bay nagu socdee weli kelmad ma yihin wadani dalka waxaas bal dagaal bay nagu socdee Muuse dagaalka muu ka waramaa dadka ma u waramaa halka waxa maraya maalinta laas aan daalo ka dhacay ilaa maanta soo dadku ma waramo ciidan markay jabeen wadan uu ku farxay soo geed taageero shilay inuu kuma jiro dagaalka soo geed lahaa ay lahayn ku taageera soo haday dhegeyso soo laaya inta baaqan anaga in dadka iska soo faxaytay waa yacda satiri kuwi wadani buurta galay soo geed lahaa ma kuwaas wadani kamid ahaa aska xagaan wadani ka ahayn waxa ku jiray ilaaladii ciidan ku jiray laakiin Faysal xilliga doorasho doon baa lahaa adiga qudhaadu waxaad kamid ahayd isbahaysigii mucaaridka dowladda baad ahayd anagu isbahays waxaan ku ahayn inaan biibitooyinka iska hortaagay aanad rabin in doorashada dib loo dhigo oo la kala qaado sawti arintaasi taagneed xilliga maxay wada adigu isbahaysiga waliba gudoomiyihii ka waxaan ku yidhi waxaan kamid ahayn sidii ii wareyso intelligent min mutacalima waxyaalahan u diiday in hortaan siiyo magaranaysa interview because professionalism tin anu waxaan ku ahayn ninka xusbiga isbahaysiga kow inaanu gacanta u gelin ruling baadiga baarlamaanka iyo talada baarlamaanka iyo executive wata anigoo xirsi iyo ira xumeeyeen handana aan ka doortay in iyaga la sameesto isbahaysi waxaan ka ilaahay Muuse labadu isku tagaan wata 2005 kina kulmiye la sameeyay oo markaas check and balance kaanu ilaalinay inta markaanu qaybsanay waan kala fulay sama waxa yimi markuu bibitooyinka furay bila sharciga taas ka soo horjeedin tiiban ka soo horjeedin in sharci ku soo noqdo doorashada waqtigeeda u korsaday Saleebaan gal u kordhiyay badin aan la bal eeg inaynu idinkeena siyaasiyiinta journalist ay fahmeen balin aan la dooran guurti ay ku tahay guurta isku kordhiso nin aan la dooran oo isku kordhiyay ayaa istankii kale u kordhiyay oo in leenahay maanta waa sharci marka waa sharci wuxuu dhan waa sharci daro guurti iyaga ilaahay isdhaxasho guurti ay dad waana galeen guurti ay soo dejira galo waanu waxa ma sheegi maayo laakiin waxaan ku sheegay dalkan reform ku sameeynaya
dhul gariir qarannimo ah ayaan ku samaynayaa boqolka maalmood oo horeeya dhul gariir baan ku sameynaya insha allahu tacaala way Faysal hadii ba ay dhacdo aad mar afraad kursigii weydo miyad tanaasuleysa oo maaragtay wada aqbalaysa natiijada inta badan waxa la isku soo celisan ereyga ah natiijada aqbal iyo aqbali mayno waxa la idinka arkaa siyaasiyiintiina kursiga doonaya in arintaas ay dadku aad ugu dhagtaagayaan aniga wala yaqaan maxaad eli orisa aniga waxa ku kala sameeyaan iyo sheegi anigu riyaal ma ku helay ila yiri اعتراف BBC oo ka hadlay ay siin aw bukursada wuxuu yiri ilaahay nabiga ma ilaahay naxariiso dhintay wuxuu yiri ilaahayna waa nool yahay nabigana waa dhintay atay kursigiina waxa riyaale Soomaalina waa nabad baan ku yiri kani ma ka helan koon leeyahay siiraayo saasoo kale ugu yimaadeen reer wadani reer baa udub watan reer anagoo maalintii u dambeysay la dhacay mariya kan u dirtay in ii qoreen magaalada say ii qoreen koole muraaqibiin taydi ayaa wadan iyo ka soo qoray iyo Muuse halkan boqolkiiba 10 baa la ii qoray 4% aan geyn baa la ii wada heshay markii haddana wadan dagaalka bilaabay soo aan ii wada markii aniga ay tahay weydiinay labadan isku dhaaray weydii in aniga tahay la timaadaan maahay aniga dawad aan u riwan samay miyaan dagaalamay mar qura miyaan buurta galay miyaan gacan libaax intaan imaka aan buurta galin doorkooda soo gacanun may galin gacan libaax go'aan kama soo saaran taade wadani soo kama soo saaran shirki gacan libaax ma dilowdi kaas gaboos laha wiiligi wala inaga horjooga kursigan sababta laha dadkan isma dhageystaan baan laba kelmadood oo intaas aan ku jiray doorashada iska hor imaanay ii kan never igu keen mis waana consistent yeelata way Faysal adigu maxaad rabtaa in lagu doorto dadka war anigu waxa la iga doortaa waxaan qaran baan doonayaa dhisano waxaan kursi ma doonayay de waxaan ka doonayay waxa qabtay tacabkay wala yaqaana waxaan nabadii baan ka shaqeeyay markay Soomaaliya barbatay maxaan ka doonay markaan doodin 2017 soo taan dood helay 75 maxaa maanta weydiisan waxaan ka doonay hiyo way shaqeeyay waxa maxaa qabataan doonaysan ku tartaan iyaga taa weydii laakiin waxaan ku qorsheeyay waan ku sheegay waxaan ku sheegay banaankayga waxaan ku sheegay bilariska igu horeeyay ku sheegay maxaad ka doonaysaa way waxaynu ku noqonaynaa gobolka Sool oo gobol Sool waxa la saano Sool ee Somaliland ma la saano gaar ahaan caasimadda waxaas waa afka eeg cadowga afkiisa ku adeegtaan ragina weyn siyaasiyiin kama tirsana miya la saano ma hadda doonto bariga Sool laakiin Sool hawasiin waa si wanaagsan maxaa kaaga qorshe ah maxaa qorshe anu ma dagaal mise colaasad ku soo celinaysa nabad baan ku dhawaaqay marka soo baxo waxaan u fariyaa goosha hadii ma hayaan wixii qarankaygu xaq u leeyahay yeelaya qarankaygu wuxuu leeyahay in xadkayga tago marka hore waxaan secure gareynayaa haday diidaan wixii dawladda sameyn lahayd baan sameynaya wixii dawlad oo dee sameeyaan xuduudeeda tago insha Allah taala the enemies don't take أنا بربرية كلها نبض ما هو باقية حدين نبض هديدان إنه الصومال لاند وإنه الرمين جيد ما كنا بيسنجر حرام بينك هاد حبته لكن إنك ضديها سياد براه ردينا وما نقول سد دولة سياد براه أوية وحكى لنا ودي لي ما يعني يا حدوي موايو حد كي وانتك حد كي وانتك وحن كل تاع أبيه تكري هل مريء سؤالك بس وطن كستوى xuduudisa wax xoog u maraya dad badan waxay dhahdaan dagaalkaasi dhaqaalaha Soomaaliland saameyn buu ku keenay adiga taasi ma ku muuqataa muxuu keen waayay 12 bilood ma fadhiyeen inuu dagaal qaado oo xuduudda tago faraay ani la jabiyo doorashada doonida aragtay oo waddanka soo hooday oo dadka gaajoonayaan hodheer garan hotel baan tago 7 qof ku nool hodheelo dhan ba xiran xuduuday markii lagu doorto diyaarada u raacaya way mudane Faysal waxa jirta oo iyada qudheeduna maaragtay meesha taala in Soomaaliland waqti xaadirkan shilinkii Soomaaliland qiimihiisa hoos u dhacay arintaas oo kale maxaa kaaga qorsheeyay shilinka Soomaaliland taa dhaqaalaha hadii ku sii socdo dhaqaale siyaasadda dhaqaale ma jirta siyaasadda dhaqaale dalkan ma jirtaan ku yiri tu waxbarasho ma jirtaan ku yiri ya tu caafimaad ma jirto tu dibadii ma jirto
waddankan waa dissatisfaction dad wanaagsan baynu nahay oo iyagu isku filan shacbigeenu ilaahay khaldaaye iyaga waxa nabadooda isagu shaqaysanaya qudradda iiminayaan laakiin adeer meeshan ma jirto siyaasad dowlad mid qaranna ma jirto kan meesha la geeyana reer baa loo geeyay nin meesha la geeyay ama qofka la geeyay aqoonteed leh ma jiro wax soo kordhinaya wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya in badan bay socdeen aan laga gaarin natiijo rasmiya ilaa hadda waxaad moodaa khilaaf baa jira u dhaceeya imika labada dhinac adiga maxaa kaaga qorshaa xiriirka wax Soomaaliya ma jirto waa wadani ma jabiyay 2002 alifkii doole wada hadaladii ay doonayeen nimanka wadani aadan jibriil ka sheeganaya aadan muuse jibriil maalintan jabnay waa maalinta dawladda aan jirin aan la shirnay eragii ku jira aniga maxaa la iga saaray muuse inuu gudna badda wada hadalahay shoo anu ba cidla gaariyay ragan ila socdaa iyo walaweyn iyo Soomaali way isku xidhan oo in dilbil isku noqdo ayaa la doonayay ra'iisul wasaare way doonayaan ra'iisul wasaare isaaq la siiyo ayaa way aqligoodu qaran uma jeedaan marka aanu la hadlimayno waana burburisa kan ma waxa golada Soomaali way taagnaas golada waxaan ku leeyahay xusbi Allah furan ku leeyahay waxa la furan waxa way weydiisanayso xusbi furan xusbi weydiis la hadlimayno aanu la hadlimayno la hadlimayno يعني قرش الله هذا ما حنا ويا الدولة به ما أحمد مدو ما الله الله ما حسن ما الله الله ما دني ما الله الله ما رفت كلام ما الله الله ما هيران ما الله الله يا الله الله إديك الدت كينا Somaliland أيام ما واحد أنشني واحد سكر دقيقة that doesn't exist we failed state حسن حقول حكومة أروح كاس الدنيا هكشق يقف فترة بان كشق هي هذا كسودي أركيني كأبقى اللي جسوا كتينة دي كسرائيو ودني وكسوا أحمد مدوي وقبائل ما يالق ولا هيستو ما كان واحد دولة إذا ما جرتو إنه وحين هو شرعي دولة متقارنة نبغى كان سمينا يا شاء الله تعالى استراتيجية كل اللي من سمينا لو يرهن وقبسنا إنه كم عايز سينتنا أي وحين هكذا صورنا لبس لجودي إن شاء الله تعالى أنا هكذا صورنا وهاك فيصل بدنا وحاور بهنت laga arkaa adigu xoog u dhaliilaya xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa sidoo kalena marmar waxa la arkaa adigu sidoo kale dhalay xisbigii mucaaridka ahaa ee wadani oo labadiinuba mucaarid wada haydeen dadka qaar waxay leeyihiin maxaa Faysal inuu xisbi mucaarid ah dhaliila keenay maadaama ay laba xisbiyo mucaarid ay xaqi ay usha ama maaragtay xabad dhinac u wadreed lahaayeen xisbiyada mucaaridka ah maxaa dib ugu celinaya mucaaridkii horta waa aqoon darada weey saddex xusbi kulba issue oo imanaya arrin baa imanaysa marka arrintaas waxa laga yaabaa marka arrintaas timaado in labada xusbi mucaaradka isku arag ka noqdaan sidii biibitoonka ku ahayn marna waxa laga yaabaa arrin timaado inay xusbiga mucaaradka iyo muxaafidku ay isku mid noqdaan anigu maanta waxaan ku midnahay difaaca qaranka aniga waxaan ku midnahay MAU da labada uu ka soo jeedaa wadani marka ma aha xusbada sax waa issue warta issue dadka wadamada adduunka lagu xukumaa issue-ga taagan mowqifkayga iyo mowqifka haddii dowladda yeeshaan ma xusbiga ma taageeray issue saasan taageernay dowladdu DB waa ma dowladdan ku jiray markan taageeray halkii cir lahaa maxkamadan saaraya wato lahaa Muuse saacadu ha saxiixni saacadu lahaa Muuse soo aan taageeri marka waxa weeye wixii dalka u kordhiya haddii dawladdu wax wanaagsan keento waan ku taageeriya ma doonayna soo noqonaha maxaad xal dhow bixin doontaa dad maanta DB way bixistay ay ugu yiraahdaan maalintii marka idinka qodina kulaya ama mujtamaci ku jirtaan baa aynkaas mujtamaci ku jirtaan ayaa gabigooda yahay local way Faysal dad kale waxay iyaguna aaminsan yihiin dabcan anu su'aalahan ku weydiinay ma ku aragtida ma waa ku ay weydiin aad wax weydiisaa qaar intelligence wala weydiin ka inka leemanka wixii ay weydiin Mareykan baa tagtay wada aragtay adduunku soo shaqeynayo waa daawatay TV-yada waa aragtay musharaxiintu issue-da ku hadlayaan maanta waxa ka hadlayaan waxa isku haystaan waa dhaqaalihii waa reer soo guuraagii issues baa isku haya marka aniga qofka reer miyiga ah su'aashiisa ay weydiinay mid ku qalantaa idii weydii
way dadka qaar waxay leeyihiin Faysal Cali Waraabe deegaankiisii xisbiyadan kale ee u tartanka kula jira ayaa mararka qaar kaga saameyn badan iska bedda gobolada kale dalka waxaas waxa maana deegaankayga iga qaadi karaa Muuse Bixiyo iyo Ciro afartan hunguri u tagay maahane maaniga ayuu iga qaadi karaa yaa iyo codeeye marka qabiil ugu codeeye ciidagala iyo codeeye waxay ku sheekaysanayaan ayaa moodaysa afartan tagay meesha ee hunguri u tagay dan iskuulka yaa dagtay yaa geeya carruurta isaanta gaasho tam Muuse u tagta masaana ay timaada mase Ciro u tagta ka bokooda maanu yimaada sidoo iga bataan karaa ma Muuse ma Ciro gudoomiye baarlamaan ka dhigay 141 boqor shaqaalaha hal ciidagala muu qorin Cabdirasaaq bari oo taxabad iyo qoray Cabdirakhali wuxuu qabtay erayga gudoomiyan ka dhawaan lagu isticmaalay adeer waxaas waa dacaayadaha xal fariin u diraysaa dadka deegaanka si gaar ah waraynu deegaan Soomaaliland ban wahay anu nin qabiil meey anu qabiil meey anu nin qaran banahay Soomaaliya ka shaqeyn jir qaran ah maxaa qabiil ugu soo celinaya tolaya garxaj bortaan meelaha geyso tolaya araba waxay gaysay tolaya reebele ma geyso qaran baan u ahaa qaran baan ahay laakiin Faysal dadkan aad wada magacaabayso soo dadkii aad codka ka doonayso ma qabiilaha ahaadaan ama cid doonaba ha noqdaan luqadii doonaba ha loo dhigay soo kuwii codka aad ka rabtay yani waxaan ku reer Soomaaliland ma ka rabaa reerka ma rabo reer Soomaaliland waxaan uga rabaana maaha tol baan haysiye waxaan rabaa horumarkiini caafimaad ma haysan caafimaadkan siinaya shaqo ma haysan shaqo caruurta qoriya biyo ma haysan biyaan siinaya leer baan wax da adduunka lagu bixiyo caynka laakiin tolaaye ninka uu tolaya ya kala badinaya mareer ka badan oo xisbi soo saar kara mareer ma aniga hay ula meelisane anu waxaan ku yiri Soomaaliland iyada ay baahan anu ma baahni I'm okay shakhsiyan marka individual laakiin anu waxaan ku yiri in aad wax noqotaan doonaya in caruurtiina shaqo heshaan ma doonaya in tacliin heshaan ma doonaya marka aniga wax mar hore is break 1994 95 kiisa ayaan ra'iisul wasaare weydiisanay marka muddo nabad ahaa cidna ilaalisa wixii waan siinaya laakiin mid baan idin sheegaya ma taqaanad waxa u dhaxeeyay jabhadiini difference maya wixii anoo leaders banahay idiga suuqa la xukumay أنا مي بقول قبضة مي العكس وأنا بحمي مشاركة إذا كنا مي قبضة أفتر تيري ليه أيستيسو فاكو بس مثل باور فاكو ما كان عن نقول عندنا فلوري سو نيكا كومن مانكو حلاي ويديني as intellectual يعني كلا فريس أنا وحيانا أدي لي إن لا فريسو وإن بي سي هذا لا فويسك إن لوكال أدي لي لأنه واحد ويديس وحي لي مانكا way Faysal ma noo sheegi karaysaa saddex qodob oo aad isleedahay nimankan kale kula sharaxan ama musharaxiinta kale waad kaga fiican tahay oo waa in adiga lagu doorto daa waan ka fiicnaa waan ka tacliin badnahay waan ka experience badnahay inta aan dalka galiya ma gelin baad waxa ii sheegtaa wuxuu maanta intuu cir isoo tagay Muuse yiraahdo contribution jabad baan hayn jiray moojaane ana moojaane bal wuxuu yiraahdaa inta ay Soomaali jirtay saasaan kelmaddaas maalintan in shisheeye ku iri xasan ma ka ku iri ciidamadii baan saa ku yiri bal kelmad ii sheeg ana aad record-kayga wala yaqaan ninka qoray Soomaaliya u jawaaba cadow aan ninka dadka u warama every week Soomaali warmi dadka adduunka halku marayo iyo halkan marayno Soomaali macna maanta la ila simaa la joogo bal waxay la shir imanayaan inay yiraahdaan waxaasan qabtay aan si kordhiyay ii qabta ma oranaya anu nabad ma ka shaqeey marka nabad ninkii dagaal ka soo horjeesto Muuse ma ahayn ilaa hadda wax dili karo soo cira ma ahayn ninkii reerkooda dagaalamay soo ma ahayn man nabadu ka shaqeynay marka imaka ciidamada jabeen ninkii tusaay qadsaaniga ma ahayn ninkii taariikh soo ma ahayn ninkii dawada u geeyay aniga ma ahayn hada dadku waxa ku xisaabtanaya dadkii footeynay afartan naanaala ay sheegay way xilligii ololaha lagu jira hadda waqti xaadirkan adiga dadkan xisbiyadan ololeynaya waxay ku ololeynayaan waa dhaqaale waxa baxaya gaari socda waxa sameecad maaragtay magaalada wareegaysa isku imaantinka intaas waa dhaqaale adiga shakhsiyan ama ka xisbi ahaan halkeeda dhaqaalaha aad ku ololeynsan ka keentaan ma dawladda shisheeye taageera ma dadka xisbiga kamid ah baad lacagta ka keentaan xageed ka keentaan أنا waxaan wixii caruurteeda wada ogtay wadayna tabaarkay company-ga inaan teedo saaxiibana waan leeyahay soo Soomaaliland ya waxay waxaan ma bugbug iyo
dee intaasoo wasiiro lacag xadaynaa iguma jiraanoo baaburadii soo kaxaysanaya anuu adig wada arko ilaa sheekh isxaaqi baan tegey ciidamadan u tegey waxyaalaan helaba waan hagaajiya dadka anugu codaynaya ayaan la xidhiidhaa lama xidhiidho kuwa qaadka doonaya in codayna marka alxamdulilah ilaahay khaanadihiisu way badan yihin ya maryan maxay tiri markii maryan xagga cuntada ka hesha ya waxay tiri ilaahay arsaaqadiisu way badantay arsaaqadii laga badantay waay saddexdiina musharax waxaad ka siman tihiin oo aad og tahay adigu noo sheegi kartaa ma jirtaa dee waxaan moodaya inaan midnimada goonisaas ka midanahayo hadda waa adiga arkayoo waxaa ku taala qoladan wadani haddaanu soo baxno wada hadalaan bilaabina kama sinin markii hore waxaan moodayay goonistaaga somaliland inaynu gidigeenba reer somaliland ka simantay laakiin hadda waxaa daatay inaynu ka sineen oo weli doonayaan inay new arrangement sameeyaan muusena wax alla wuxuu aaminsan yahay garan maayo muuse wax dowladnimo wuxuu ka aaminsan yahay waa zero ma garanayo laakiin saddex xisbi qaran baa tihiin qarannimada waad ka soo wanaagsan maxay qarannimada maxaad ujeedaa somaliland inay waddan noqoto teesoonin kule qoran tan kule wada hadal ma bilaabinaa muusena wuxuu ujeeda garan maayo hadduu qaran yahay waa 5 sano la doortay muu wax ku soo daro oo qaranka ilaaliyo waxaan marinay gowcda agteedii muu difaaco hadduu qaran ilaalinayo muu dadku u midaysnaaye maalintii wuxuu riyaaliyay dad midaysan waxay iga tegey muu dadka mideeyo wuxuu dadku kala firdhiyey ninka anuu wax aaminsan garan maayo laakiin qolada ma aaminsan Soomaaliya ilaa hadda maxaabis ayaa meesha ku haya walaa soo daynayaan muuse ma ku elini marka aday waxa weeye ma isaayaan oo kala haatee nabadgelyo way ugu dambeyntii Faysal maxay tahay fariinta u dirto shacabka Soomaaliya waxa leeyahay tashada leh daawanaya waxa leeyahay wartashada nin dantiisii wada iyo nin dantiina wada ayaa maanta taagan anu dantiina ma wada hay danayna idigu danaysta nabad ba haystaa in markaas nabad iska baabeen doorashadaasna istaaga hareera iska taaga nabadgelyadana qof kastaba ha noqdo military intelligence police ha noqdo hala foojinaado cadowgeena uu midaysan yahay taasan dadka u sheegaya aniga idana idigu kala doorta qaxniin iyo qas kale iyo nabadgelyo iyo baraare iyo horumar iyo ictiraaf tan kala doonta aad baad maasatay musharax way hagaag daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobaynaa waraysigaasi aanu la yeelanaynay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ahna gudoomiyaha xisbiga UCID tan iyo intaanu ku kulmi doono waraysi kan la mid ah sidaas iyo nabadgelyo